haddeertan war hadda soo dhacay ayaa waxay xaqiijinayaan madaxweynaha inuu geeriyooday war degdeg ah saaxiibayaal xasan sheekh maxamuud ayaa warar aynu helnay waxa ay sheegayaan inuu geeriyooday haddaba maxaa ka jira in xasan sheekh maxamuud uu hadda geeriyooday ma runbaa in xasan sheekh maxamuud dalka turkiga uu ku geeriyooday kadib xanuun uu maalmahan dambe la yaalay maxaa xasan sheekh maxamuud uu kaamiradaha uga soo muuqan waayey xalay iyo habeen hore war la yaab leh ayaan halkan kugula wadaagi doonaa jamaahiirtii kooxdii nabad iyo nolol ahayd oo weli wada markaasi habaarka iyo hawada u marinayaan madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyagoona sheegaya in haddii xasan sheekh maxamuud uu geeriyoodo in wadanka uu mar kale la wareegayo xabiibul malaayiinkii ay umadu jeclayd si weyn qulubta Soomaaliyeed ugu dhex noolaa ilaa iyo haatanna ugu dhex nool waa maxamed cabdullaahi farmaajo oo arrin la yaab leh shacabka taageera markaasi kala hadlay jamaahiirta kooxda nabad iyo nolol waa kuwa awood muuqata ku leh baraha bulshada waa kuwa awoodo kaliya in ay muuqaalkan si weyn ay u faafiyaan isla markaana meel fog gaarsiiyaan waxaan ka codsanayaa si aan xogtan oo faahfaahsan iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo warar sir ah oo aynu helnay aan kugula wadaago inaad muuqaalkan like saartaan hal mar muuqaalkan like ku dhooba inagu waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin ayaynu ka sii qaadaynaa adiguna se wax ka dhibi mayso subscribe saaro YouTube-kan oo gambaleelka furo goobta cas ama guduudan subscribe-ta ay ku qoran tahay hal mar aynu gacanta ku wada dhufanno si aad u heshaan xogihii iyo warbixinadii ugu dambeeyay ee filla Soomaaliya iyo geyiga Soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa qaybta hoose ee commentiga dhammaantiin in aydu hal mar commentiga ugu soo qortaan in uu ilaahay markaasi caafimaad degdeg ah uu siiyo madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud si gaara jamaahiirta nabad iyo nolol oo iyagu ah kuwa sida weyn markaasi madaxweynaha u habaaraya waxaan idinka codsanayaa inaad qalbi naxa aad markaasi hadaad leedihiin aad madaxweynihiina aad markaasi u duceysaan maadaama xabiibul malaayiin farmaajo uu codsaday in madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud loo duceeyo ilaahayna uu uga baryay in wadada saxda ah ee markaasi dalka uu u baahan yahay in lagu maamulo oo madaxweynaha ku maamulo marka uu ka soo kaco xanuunkan daran ee markaasi dalka Turkiga loola cararay iyo xaaladiisa caafimaad oo halis weyn ku jirto subscribe YouTube-ka hal mar aynu wada saarno si saaxiibo badan oo muuqaalkan u gaaro xaaladda caafimaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn looga dayrinaya warar soo baxay ayaana sheegaya in madaxweynuhu uu geeriyooday xaqiiq TV waxa ay wareejisay taleefano kala duwan si ay u hesho xogta rasmiga ah ee madaxweynaha iyo halka uu ku sugan yahay waxaan kula wadaagi doonaa muuqaalo sir ah oo laga helay filla Soomaaliya oo madaxweynaha laga saarayo iyadoona diyaarad qarsoodi ah markaasi loogu qaaday dalka Turkiga horey ayaynu u baahinay in madaxweyne farmaajo uu duco iyo markaasi bogaadin uu la garab istaagay madaxweynaha uu xilka ku wareejiyay xasan sheekh maxamuud madaxweynaha talada dalka haya ayaa waxa uu markaasi ka soo muuqday kaamirooyinka isaga oo wajigiisa aad moodid waji si weyn markaasi xanuunka uu u saameeyay madaxweynuhu waxa uu xanuunkan ka soo qaaday wadanka isku taga Imaaraadka Carabta ee Abu Dubai markii uu madaxweynaha ka yimaaday oo uu ka soo degay garoonka aadan cadde waxa uu isla markiiba barihiisa bulshada ku shaaciyay in uu hayo caabuqa COVID-19 dad badan ayaa ilaa iyo haatan qaba in madaxweynuhu uu caafimaad qabo balse xanuunka uu sheegtay uu ku qarinayo safarkii qarsoodida lahaa ee uu markaasi ku tagay Israa'iil dadka qaarse waxa ay leeyihiin qof caafimaad qaba way ku adag tahay sida uu u dhaho waan xanuunsanahay si kastaba madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xalay si weyn loo qabtay waxaana markaasi si weyn ugu dhagay oksijiinka sida aynu ka soo xiganay xubno ku dhow villa Soomaaliya oo xogtan si gooni ah markaasi inoo la wadaagay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu talada dalka hayaa wax ka yar 2 bilood waxaana soo wajahay xanuun aad u daran dadka waaweyn da'dooduna ay ka weyn tahay 50 sano caabuqa coronavirus-ka waxa uu markaasi ku yeeshaa saameyn weyn isaga oo ugu dambeyn sababa inay geeriyoodaan madaxweynuhu haatan waxaa la baahinayaa muuqaalo sheegaya in uu geeriyooday balse xaqiiqda runta ah oo aad ka helaysaan YouTube-keenan xaqiiq TV ayaa ah in madaxweynuhu uu nool yahay balse xaaladiisa caafimaad si weyn markaasi looga dayrinayo dhawaan ayay ahayd markii farmaajo uu codsaday in madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya loo duceeyo halka jamaahiirta tirada badan ee markaasi si weyn u taageerta xabiibul malaayiinkii wadanka ka tagay maxamed cabdullaahi farmaajo ay weli habaar la kor taagan yihiin madaxweynahan haatan talada dalka haya ahna horjoogaha kooxda damul jadiid ee markaasi xaaluf iyo xaraash wadanka Soomaaliya ku haysay sanadooyinkii la soo dhaafay oo ay dalka maamulayeen haddana qorshahaasi si la mid ah damacsan balse ilaahay uu ka jaaseynayo maadaama hogaankoodii ugu sareeyay markaasi haatan xanuun halis ah uu hayo bal muuqaalkan
ila daawo waa wiil Soomaaliyeed oo ku agdhow villa Soomaaliya oo si weyn markaas u sheegaya xaaladda caafimaad ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoona markaas sheegaya in xaaladiisa aysan caga badan ku taagneen ilaa dhamaadka muuqaalkan waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saartaan si saaxiibo fara badan u gaaro farmaajo muuqaalkan hal mar aynu u wada geyno maadaama xabiibul malaayiinka dadka taageera ay baraha bulshada ku badan yihiin subscribe YouTube kan saarta si aad u heshaan xogihii ugu dambeeyay oo waliba degdeg ah si aynu daqiiqad walba halkan aynu kala socono oo xogihii ugu dambeeyay aynu idinkugu baahino waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan bismillaahir rahmaanir rahiim taariikh nololeedka Allah u naxariistee madaxweynihii hore aadan cabdulla cusmaan aadan cadde waxaan ka xasuusan karaa waxa aan inta badan gurigan ku soo koray inta badan looga sheekaysan jiray gurigan ku soo koray wuxuu ahaa guri ay isugu yimaadaan dadkii horseedkii leegada SYL waxaa yeelay aabbahay Allah u naxariistee wuxuu ka mid ahaa dhallinyaradii halganka soo gashay oo la dagaalami jirtay gumaysiga Talyaaniga isaga iyo 11 uu ku jiro yaa waxaa lagu soo eedeeyay inay qalaaso iyo banaanbaxyo ka soo horjeeda lid ku ah mustacmarka gumaysiga Talyaaniga waxaa lagu xukumay 30 sano lagu xukumay markii ay dhameysteen 8 sano iyo 9 sano in ku dhawaada 1961 July yaa la soo daayay kulli wax alla wixii u xirnaa SYL-ka marka waxyaabihii ka hadli jireen waxaa ka mid ahaa wixii la soo maray halgankii la soo maray wixii ka hadli jireen sidii loola dagaalamay Talyaaniga taariikho iyaga u dhaxeeyay dadkii halgamayaasha ah oo markaas sheekeysanayo reflection sameynayo soo xasuusanayo wixii dhacay halgankii la soo maray intii dhimatay intii loo xiray intii dhaqaale ku bixisay waxa soo idil marka waxyaabaha dhagay ku soo dhici jiray waxa ka mid ahaa markay ka hadlayaan aadan cabdulla cusmaan oo markaas madaxweyne ahaa inuu ku sifoobay ama uu ku adkaa mabaadiida ama afkaartii SYL oo ahaa midnimada Soomaaliya in la adkeeyo wadaniyadda la xoojiyo sharafka iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed inaysan gorgortan aysan galaynin qabyaaladda in laga fogaado ay tahay wax xun oo runtii dadka ummadda kala qaybinaysa ayna ahayd waxa mustacmarka uu isticmaalo si ummadda uu u qaybiyo oo u xukumo dawladdiisana runtii inta badan waxaa lagu xasuustaa oo soo maray marxaladaha soo maray inuu ahaa runtii nin ku adag afartaas mabaadi iyo shanta mabaadi ay aaminsanaayeen halgankii iyo howlwadeenadii iyo